galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa galab khamiis ah 6 bisha August sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Xuseen Barre Aadan. qodobada aan idinkugu hayno idaacadeena galabnimo ayaa waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno duulimaadyadii caalamiga ahaa ee toddobaadkan la furay Soomaaliya iyo Soomaali dibadaha ku xirnaa oo ka faa'iideysanaysa. aniga caafimaad baan u aaday Hindiya, waxaan 7 bilood baan joogay. 3 bilood ugu dambeysay corona nagu saameeyay dad dhowr kun oo Soomaaliya baxirna, kuwaas bay fursad u tahay nasiib noo helay. Soomaalidana meesha dhib badan baa ka haysatay. waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga VOA oo toddobaadkan aan ku eegayno khasaaraha dhaqaale ee ay xoololeyda Soomaaliyeed kala kulmeen dhoofkii xoolaha ee Sacuudiga oo sanadkan soo yaraaday sababo la xiriira tirada xajinaysay oo la xadiday sanadkan COVID-19 dartii. wax soo saarka gudaha Soomaaliya xoolaha waxay ka yihiin 40% ka yihiin, taasoo macnaheedu uu yahay markasta wax soo saarkooda uu bato, wax soo saarka gudaha wadanka uu badan. haddii masiibo dabiici ay ku dhacdo sida abaaraha iyo waxyaabahaas oo kalena waxay aad hoos u dhac ku keentaa in dhaqaalaha Soomaaliya ku keentaa. sanadkan waxaa la qiyaasayay in sidoo kale intii aan lagu dhawaaqin coronavirus-ka intuusan imaanin ka hor in waxaa la qiyaasayay xoolaha loo dhoofinayo Sacuudiga iyo wadamada khaliijka inuu sidii uu ahaa doono. xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale barnaamijkeena ku maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka oo ay inoo akhriso Sahre Ciidla Nuur. saraakiisha caafimaadka ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in la xaqiijiyay in ka badan 10 milyan oo qof oo reer Afghanistan ah oo laga helay xanuunka coronavirus. wasaaradda caafimaadka ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay goor dambe oo Arbacadii shalay in 9,500 oo qof oo la baaray laga helay coronavirus. Kusimaha wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Axmed Jawaad Cusmaani ayaa warbaahinta u sheegay in ka badan 30% dadkii hore looga helay xanuunkaasi inay bogsadeen. 75 sannadood ayaa ka soo wareegay markii hubkii ugu horreeyay ee nuclear dunida lagu isticmaalay iyadoo lagu dhuftay magaalada Hiroshima ee dalka Japan. subaxnimadii Khamiistan maanta abaara 8:15 ayay dad badan oo ay ku jiraan dad ka badbaaday gantaalahaasi ay iskugu soo baxeen beerta nabadda oo lagu xusuusto bamkaasi nuclear-ka, iyagoo qadar aamusnaana ku xusay dadkii naftooda ku waayay weerarkii 75 sannadood ka hor dalkaasi ka dhacay. bamkaasi nuclear-ka oo lagu magacaabayay Little Boy amaba wiilka yar ayay soo riday diyaarad nooca dagaalka ah oo Maraykanku lahaa, waxaana ku dhintay 140,000 oo qof. waxaanu baabiiyey gebi ahaanba magaalada Hiroshima. ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa khudbadiisii sanadlaha ahayd kaga hadlay go-aankii Japan ee dunida ka caagan hubka nuclear-ka, waxaanu sheegay in dowladiisu ay ka shaqaynayso dowladaha nuclear-ka haysta ee aragtida siyaasadeed ku kala irdhoobay. bamkaasi lagu qarxiyey magaalada Hiroshima waxaa daba socday bam kale oo 9kii bishii August lagu dhuftay magaalada Nagasaki, halkaasi oo ay ku dhinteen 70,000 oo qof. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in dadkii ka soo baxsaday weerarada argagixisay ee kooxda Boko Haram ay ka geystaan waqooyiga dalka Nigeria ee ku sugnaa xerada qaxootiga ee dalka Cameroon ay haatan halis ku jiraan. UNHCR waxay sheegtay in la dilay qaar ka mid ah dadkii qaxootiga ahaa ee ku sugnaa xeryaha ku yaala dalka Cameroon ee ka soo baxsaday Nigeria. warbixinta UNHCR ayaa lagu sheegay in la dilay 18 qof isla markaana 11 qof oo kale la dhaawacay, dadkaasi oo la sheegay in markii horeba ay dhibanayaal u ahaayeen ururka Boko Haram.
afhayeen u hadlay hay-adda UNHCR ayaa VOA-da u sheegay in weerarka lagu qaaday xeryaha qaxootiga dalka Cameroon ay ku tuhunsan yihiin inay ka dambeeyeen ururka Boko Haram oo malaayiin qof oo gobolkaasi ku nool waxyeello u geysta. waaxda maaliyadda ee dalka Mareykanka ayaa cunaqabatayn dhaqaale ku soo rogtay ganacsato iyo shirkado laga leeyahay dalka Zimbabwe oo lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo hanti dadweyne oo ay lunsadeen. Shakhsiyaadka la bartilmaameedsaday ayaa la sheegay in xiriir soke oo wada shaqeyn ay la lahaayeen mas'uuliyiinta dowladda waddankaasi iyadoo la sheegay in lacaga sharci darro ay qaateen kadibna ay dibadaha geysteen. raggan ayaa la sheegay in dadka ay xiriirka dowlo lahaayeen ee mas'uuliyiinta ugu sarsareysa dowladda waddanka Zimbabwe uu ku jiro madaxweynaha dalkaasi Emmerson Mnangagwa. dadka lagu soo rogay cunaqabataynta dhaqaale ayaa lagu eedeeyay inay muddo dheer ku shaqaysanayeen mashaariic been abuura iyaga oo sheegi jiray in ay ku guuleysteen mashaariic lacaga badan ku baxayso kadibna ay sidaasi lacaga adag ku lunsadeen. aad bay umahadsantahay saare ciidan nuur oo warka inala socodsiinaysa. maalintii isniintii toddobaadkan ayaa dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in duulimaadyadii caalamiga ahaa ay furtay, waxaana tan iyo markaasi ka faa'iidaystay furitaanka hawada muwaadiniinta Soomaaliyeed oo meelo badan oo dunida ah ku xayiran. wariyaha VOA-da ee Muqdisho Zainab Abuukar ayaa warbixin arrintaasi ku eegaysa kana soo dirtay magaalada Muqdisho. duulimaadyada caalamiga ah iyo hawada Soomaaliya oo xirnayd tan iyo bartamihii bishii Maaj markaasi oo loo joojiyay ka hortaga faafitaanka cudurka coronavirus ayaa dib loo furay toddobaadkan kadib markii dowladdu sheegtay in saameynta xanuunka COVID-19 uu hoos u dhacay. tallaabadaasi oo dad badan ay soo dhaweeyeen. wasiirka kalluumaysiga dowlad goboleedka Hirshabeelle Iidle Siyaar Khaliif oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay go'aanka ay dowladda dib ugu fasaxday duulimaadyada dibadda iyo kuwa gudaha maadaama saameyn dhaqaale uu ku yeeshay dalka iyo isu socodka dadka. waxaan u arkaa arrin wanaagsan inay tahay maadaama duulimaadku uu dhowr bilood xirnaa bulshadina ay xayirantay xag ganacsi iyo xag isu socod iyo xag siyaasadeed intaba dal iyo dibad ay ka kala xirnayd. walow gudaha mar hore la furay laakiin hadda aad baan u soo dhaweynayaa in la furo duulimaadyada dibadda. daday xirnayd 4 bil ahayd adigu ma ka mid tahay dadka arrintan ay saameynta ku yeelatay ama uu saameeyay xayiraadka? ka shakhsi ahaan ama wasaarad ahaan dadka ay saamaysay baan ka mid nahay. waxaan shir ku lahayn bishii Maarso aakhirkeedii 26 meelahaas ayaan waxaan shir ku lahayn Nairobi. Abriil 6 waxaan shir ku lahayn Muqdisho xalana. arrimahaas dartoodana u wada baaqdeen. dhammaantoodna waxay ahaayeen howlo lagu horumarinayo shaqada wasaaradda. inkasta oo weli uu hadda cudurki jiro oo uusan weli hadda dabargo'in oo aan wasaaradda caafimaadku aysan xaqiijinin inay uu dabargo'ay welina ay sheegayso inuu dambeeyo. dadaalka ay dowladdii jirtay ee awal ay haysay hasii laba jibaarto kii oo lasii laba jibaaro umbaa maxaanku idhahdaa hadda looga kori karaa. ilaahay wuxuu noo qadarana ma seegayno. Soomaali badan oo xayiraadii saarnayd duulimaadyada diyaaradaha saameysay iyagoo ku sugan daafaha caalamka ayaa hadda bilaabay in ay dib ugu soo laabtaan dalka, kuwaas oo ka faa'iideysanaya dib u furista diyaaradaha sida Maxamed Cabdi Cali oo xayiraada ay ku dhacday isagoo caafimaad u jooga dalka Hindiya balse dhawaan ku soo laabtay caasimadda Muqdisho. aniga caafimaad baan u aaday Hindiya. waxaan 7 bilood baan joogay. 3 bilood ugu dambeysay koroonaha nagu saameeyay. dad Soomaaliya oo soo tagayna waa jireen iga soo horeeyay. aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa aniga iyo dadkii kale oo meesha ku xayrnaa. dad badan baan u ahay isbitaalada dalka Hindiya caafimaad u aaday. Soomaalidu Hindiya ganacsi uma aaday, caafimaad iyo waxbarasho loo aaday. marka dhowr kun oo Soomaaliya baxayrna kuwaas bay fursad u tahay, nasiibna u helay. dee Soomaalidana meesha dhib badan baa ka haysatay. dadka Soomaalida oo joogana
waa dad caafimaad u tegey iyo dad arda ah oo waxbarasho u joogay marka aad iyo aad waxay u saamaysay dadkii caafimaadka u tegey oo dalkooda rabay inay ku soo noqdaan sida anigoo kale. inkastoo dowladdu ay fasaxday duulimaadyada dibadda iyo kuwa gudaha haddana waxa ay soo saartay go'aano la xiriira xakamaynta cudurka corona. hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya ayaa shuruudo ku soo rogtay in dadka dalka soo galaya in laga doonayo in ay haystaan shahaado caafimaad oo muujinaysa in ay iska soo baareen cudurka COVID-19 oo laga waayay. go'aankan oo saameynaya guud ahaan dadka dalka ka soo galaya dhanka hawada, dhulka iyo badda, waxaana aqoon-yahanada Soomaaliyeed ay ku talinayaan in la adkeeyo hubinta iyo baaritaanka si cudurka uusan u soo laba kaclaynin mar kale. Sulaymaan Cilmi Sheer waa aqoon-yahan bartay cilmiga bulshada. laga taxadiro baaritaan lagu sameeyo dadka diyaaradaha caafimaadkooda la hubo labada dhinacba. marka dowladda federaalkuna waa ku qasban tahay inay caafimaadkii maxaa la dhahdaa dadkii xagga ka yimid in la baaro, kuwii dalka ka tegay in la baaro sida beesha caalamku hadda la sameeyay. waayo xanuunkan waxaa la ogaaday inaanu dhammaanin, laakiin waxaa la go'aansaday in lala noolaan karo laga taxadiro maadaama dhaqaalihii uu saameyn ku keenay, dhibaatooyinkiisa dhaqaalna ay aad wadano badan dhib ugu noqotay. qofka caafimaadkiisa la baaro, qalabyo la keeno, ayagoo laga taxadirayo sida haddaba loo kala fog yahay mar walba loo sameeyo looga hadlo intaa mid lamida la sameeyo la xoojiyo amniga, dabadeedna la eego qofkii caafimaadkiisa, sidaasna markaasoo diyaaradii dadku raacaan, hawadiina saa furantay. marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. dowladda federaalka waxay ka mid tahay dowladaha ayagoo sidan oo kale u furay hawada. kasakoo duulimaadyada dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in ay dib u furayso adeegyadii kale ee loo joojiyey cudurka COVID-19 dartiis sida iskuulada iyo jaamacadaha 15 Agost kadib bilooyin ay u xirnaayeen cudurka corona. injineer Axmed Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo bilaabo waxbarashada oo baahi weyn loo qabo. khatar weyn oo hadda cudurkaas laga baqayo markii hore loo xiray darteed loo xiray arrinta waxbarashada siiba hadda ma muuqato khatartaasi. marka in la furo waana lagu qasban yahay, baahi weynna way u taagan tahay arrintaas oo baahi baa loo qabaa. marka tala ahaan aniga waxaan ku bixinayaa in la furo lana ilaaliyo cudurka laftigiisa uu soo laba kaclayn karaa in wax yimaadaan iyo in kale oo weliba la sameeyo tallaabooyin lagu ilaalinayo oo wacyigelin badan la sameeyo, wasaaraduna ay samayso, dowladuna ay samayso, dhallinyarada iyo caruurta iyo waalidka iyo macallimiinta intuba ay iska kaashtaan. si kastoo ay ahaato dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in dhaqaalaha dalka Soomaaliya uu hoos u dhacay tan iyo markii ay joojiyeen duulimaadyada caalamiga ah. Saynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho. haatanna dalka Sweden. hooyo Soomaaliyeed oo hore looga qaatay 7 caruur ah oo ay dhashay gudaha dalka Sweden ayaa shalay markii ay dhashay kii 8aad saacado gudahood laga qaatay canugii yaraa ee ay dhashay. hooyo Faadimo Baranburtoy ayaa markii ay gabadha yar umushay laga qaaday saacado gudahood iyadoo ay kala wareegeen mas'uuliyiinta deegaan ay horey uga soo guurtay. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Sweden kula xiriirtay Sheekh Xuseen Faarax Warsame oo goobjoog u ahaa sida falka qaadashada ilmaha yar uu u dhacay. marka ugu horeysa walaal Zahra waa maasan tahay waayo intaan arrinka hadlin Allah subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa in walaal Faadimo iyo Maxamuud Ilaahay subhanahu wa ta'ala carruurtooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala jamiil Allah u soo celiyo. waa sida tilmaantay waxaa jirtay caruur kale oo maaragtay degmadii ay deganeed looga qaaday kadib waxay u soo wareegtay dhinacan iyo Stockholm
waxaa markaa jirtay aragti ah in maaragtay ilmaha caloosha ku jira haddii ilahay ilahi subxaana watacaala uu nabad ku kala keeno in allah subxaana watacaala jala wacala ilmahaadi haysanayso. laakiin shalay ayaa waxaa dhacday in maaragtay qolada socialku ay yimaadeen isbitaalka inay maaragtay gabadhiina ay sidaas ku qaateen, sababtuna ay tahay warbixino dhinacaas iyo degmadii kasoo guurtay ooga yimaaday. marka cunugta yarta ah oo hadda markaas dhalatay meeqa beri ayay dhalaneed markii laga qaado hooyadeed? walaal Zahra, waa kolay waa arrin xanuun badan, waayo saacado ayay gabadhu maaragtay hooyadeed la joogtay. waa dareemi kartaa hooyo fool soo martay, ilmihii yaraana laga qaatay. ilahay baan ooga baryaynaa biasmaa wasifaat alculiya in allah subxaana watacaala badal khayr qaba alla si uu soo celiyo, waayo waan dareemi karnaa xanuunka ay foosha ay leedahay iyo sida ay tahay. ilaahay baan subxaana watacaala ooga baryaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala u gargaaro. marka saacado ayay gabadhu, dhowr saacado waxay la joogtay ilaa iyo maaragtay 10 saacadood iyo in ka badan. marka waxaad iga warantaa dad jaaliyada ka tirsan ma la hadleen xataa qolyihii qaadanayay cunugta yarta oo dhalatay markaas ilmihii horeetana dabcan horay usii haystay oo ma lala hadlay oo xataa ma la xiriirteen adinka? walaal Zahra saa sheegtay kolay markii la qaadanayay goobjoog baan ka ahaa, waan joogay, waana meesha ayaan joogay, isbitaalka ayaan joogay. shaqaalaha ka socdayna kolay waa wada hadalnay qaarkood. waxaan u malaynayaa in saacado kale aan meesha joognay oo darteena u joognay, laakiin sida iyaga ay tilmaameen waxay sheegeen in maaragtay muxuu ahaa arrinta ka timaaday degmadii ay hore u deganaan jirtay, inay maaragtay waxyaalo badan ay soo gudbiyeen oo maaragtay aad u adag, kuwaasoo aan rabin inaan maaragtay dhinaca idaacaddan kala hadlo. laakiin waxaan isku daynay inaan arrinkaas aan iyaga kala hadlo, aan u sheego, aan idhaahdo waxaa wanaagsan in maaragtay waalidka iyo ilmaha in meel lagu xareeyo, meeshaasna lagu baaro, taasoo aan horey aan u samaynay. waa garta. hadda marka gabadha caafimaadkeeda waa sidee iyadoo ilmo saacado dhalan, maadaama ilmihii yaraa laga qaatay, kuwii hore uga sii maqnaayeen, aabaha iyo hooyada ciyaalkaas dhaleen dareenkooda waa sidee? walaal waa dareemi kartaa, waayo qof walba oo maanta maaragtay islaama oo damiir ah xanuunka uu dareemi karo. alxamdulilah, allaha barakeeyo, inkastoo iyadoo ta hooyo maaragtay samir badan, dareen ay dareemayaan waa dareen aad iyo aad maaragtay muruga u leh. wamaca dalika culayskii xanuunkii hayay ayuu maaragtay arrinkaana uu zaaid ugu noqday. laakiin maadaama dad muslimiin aynu nahay, waxaanu ognahay qadarta rabbaaniga ah. ilaahayna waxaan ka baryaynaa in carruurtaas ilahi subxana watacaala soo celiyo. isla maantaba xataa kulan baan anagu aanu lahayn waalidka iyo kamuunka. insha allah kolay khayr baan ilaahay subxaana watacaala ka rajaynaynaa, waayo wadahadal baa markaa noo bilowday. ciladuna kama taagna meesha kamuunkan hadda aan degannahay, iyagu ficilkii bay sameeyeen, laakiin ciladu waxay daba socotaa kamuunkii iyada deganaa oo aan kamuuna aada wanaagsanaan ahayn. waa garta. marka deegaankay hore u deganeed oo ilmaha looga qaatay ayaa keentay in midkay dhashay oo hadda ay ku dhashay deegaankan aada joogtaana laga daba imaado oo la qaato? kaas baa keenay oo ilaa iyo dadka mas-uuliyiinta ugu sarreeya, khaasatan sheekh xuseen aan la hadlay, qofkii maanta maaragtay go-aanka gaarayay baan maanta wada hadalnay. marka waxaan hadalladanada ka mid aan ku wada hadalnay, maadaama ay iyagu ay yidhaahdeen maaragtay muxuu ahaa maadaama aqoon badanna annaga aanu lahayn, qolooyinkaasna maaragtay xiriirkeena la soo sameeyeen. waxaan anagu rabnaa si aan waalidkan iyo annagana isu barano, inaan baaritaan aan anagu aanu samayno. inta sababtoo ah sharci wuxuu dhigayaa isbuuc gudihiis in maxkamadda la aado. maxkamaddana kolley waa loo aadayaa. marka looyarkii u doodayey iyo arrintaas oo dhan waa ku wada jirnay. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa khayr tiro badan, laakiin ciladu waxa ay tahay dhibkuna ka yimaaday magaaladii ay kasoo guurtay, tuuladii ay kusoo guurtay ayaa dhibaatadu ay ka timaaday. awal arrinteedu kolley sida ay awalba idaacadaha uga hadashay, waa rajo fiican baanu qabnay walaal, ma garatay. hadda ugu dambeyntii kulanaad ii sheegtay inuu dhacay. kulanka ma wuxuu dhex maray adinka dhexdiina soomaalida ah iyo ciyaalka waalidkood, mase adinka iyo jaaliyadii oo adinka ah iyo sidoo kaleeto dowladii countiga ama deegaanka aad degan tihiin ayuu dhex maray?
walaal kulanku wuxuu dhex maray labada waalid iyo aniga iyo dadkii maaragtay muxuu ahaa mas-uulka ahaa ee qaatay carruurta ayuuna dhex maray. hadda marka xal ma laga gaari karaa ilmaha dhibkii shalay loo qaatay mase lagu guulaysan karaa haddaad iskuday samaysaan idinla tahay xaalka? alxamdulilah wax walba waa suurtagal. kollay wadahadalkiiba hadda maxkamadii way ku khasban yihiin maadaama sharciga carruurta lagu qaato oo iyaga horey u dhigteen waa in usbuuc gudahood ay marka maxkamad ku gudbiyaan. maxkamadii bay u gudbinayaan. wixii ka dambeeyana waxaa imaanaysa in maaragtay muxuu ahaa waalidkii iyo iyagii ay maaragtay ay xiriir sameeyaan. tan labaad waxyaalahan ka hadlayna waxaa ka mid ahaa oo kale in maaragtay muxuu ahaa waalidkan fursad la siiyo in maaragtay carruurtoodii ay maaragtay ay la noolaadaan oo meeshaasna baaritaan lagu sameeyo. waxaa laisla qaatay oo kale in maaragtay waalidka iyo maadaama aqoon aan anagu horay aan u lahayn hayse ahayn waxaan rabnaa inaan anagu isbarano. laakiin cilladdu waxay ka taagantahay walaal imtixaanka jira iyo dhibaatada jirta waa kommuunkii hore iyo degmadii ay deganeed ayaa sabab u ah. kaasi wuxuu ahaa sheekh xuseen faarax warsame oo ka mid ah culimmada soomaalida ee dalka sweden. sahare cabdi axmed ayuuna khadka telefoonka ugu warramay. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o eda oo ku saabsan khasaaraha dhaqaale ay xoolleyda soomaaliyeed kala kulmeen dhoofkii xoolaha ee sacuudiga ee sanadkan oo yaraaday sababo la xidhiidhay tirada hajinaysay oo la xadiday sanadkan. jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo diyaariyey. dhoofka xoolaha ee Soomaaliya ayaa khasaare la kulmay sanadkan kadib markii Sacuudigu uu daajiyay in dibadda looga yimaado xajka sanadkan sabab la xiriira cudurka COVID-19. Xajay aad u fara badan ayaa qala xoolaha marka la gaaro xajka sanad kasta. Soomaaliya ayaa sanad kasta u dirtay Sacuudiga malaayiin xoolo oo isugu jira ari iyo lo, balse sanadkan waxay xaaladdu ahayd mid ka duwan sidii hore. taasina waxay keentay khasaare xooggan ay galaan ganacsatada xoolaha Soomaalida ka ganacsada. Soomaaliya ayaa xoolaha oo ah isha ugu weyn ee ay dhaqaalaha ka helaan marka laga hadlayo wax soo saarka gudaha. waxaa arrimahan sharaxaad ka bixinaya Barasare Cabdinuur Cali Maxamed oo madax ka kulliyadda dhaqaalaha jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho. xoolaha waxay ka tirsan yihiin agriculture sector ka tirsan yihiin waxa dhaqaalaha la yiraahdo kuwaas oo ah beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga marka la isku daro. organizationka u qaabilsan qaramada midoobay cunnada iyo beeraha wuxuu sheegay in 65% shacabka Soomaaliyeed inay si ugu lug leeyihiin xoolaha ay si ugu lug leeyihiin. kulgulaashaas wuxuu ahaa karaa dadka dhoofiyo, kuwa dhaqdo, kuwa dalaalo dhammaan markii la isku daro. 5 sano la soo dhaafay daatada waxay sheegeen in 80% Soomaaliya waxa ay dhoofinaysa inay ahaayeen xoolaha inay ahaayeen. waxaa la qiyaasaa celcelis 5 milyan in la dhoofiyo, baryaar in la dhoofiyo. sanadaha qaar way ka yaraadaan, marna inay dhaafaanaan laga yaabaa. 360 milyan oo lacag ahana laga sameeyaa exportigaas laga sameeyaa. wax soo saarka gudaha Soomaaliya xoolaha waxay ka yihiin 40% ay ka yihiin, taasoo macnaheedu yahay markasta wax soo saarkooda uu bato, wax soo saarka gudaha wadanka uu badan. haddii masiibo dabiici ay ku dhacdo sida abaaraha iyo waxyaabahaas oo kalena waxay aad hoos u dhac ku keentaa dhaqaalaha Soomaaliya ku keentaa. door muhiim ay xoolaha ku leeyihiin dhaqaalaha Soomaaliya ku leeyihiin waxaa kamid ah haddii ay kobacoodo oo keeno kale in ay dhaqaaluhu uu kobco, iyo sidoo kale inay shaqaaleysiiyaan dad badan, inay shaqaaleysiiyaan sidoo kale wax soo saarkoodana uu horumaro. garaan markasta oo xoolaha dhoofiskooda uu fiicnaado oo ay kharash ama lacag soo saarayaan dhaqaaleyntooda iyo hayntooda iyo sidoo kale badanaysa. sanadkan waxaa la qiyaasayay in sidoo kale intii aan lagu dhawaaqin coronaviruska intuusan imaanin ka hor waxaa la qiyaasayay xoolaha loo dhoofinayo Sacuudiga iyo wadamada khaliijka inuu sidii uu ahaa doono. gaar ahaan ciidul adxa Sacuudiga wuxuu soo dhoofsadaa sanadkii 3 milyan oo xoolaha uu soo dhoofiyaa, xaj kasta uu soo dhoofiyaa. 3 milyan 1 milyan oo kamid ah waxaa laga keenaa Soomaaliya iyo Suudaan laga keenaa. Soomaalida marka
xajka bas waxaa kasoo geli jirta celcelis 4.9 ama 4.9 milyan oo lacagaha kasoo geli jirtay sanadka kasoo geli jirtay so baaqashada uu xajka baaqday waxay keenayeen in lacagahaas ay ka baaqdaan dadka soo geli jiray ay ka baaqdaan. Saciid Yuusuf Axmed oo ka mid ah ganacsatada xoolaha ka shaqaysta gaar ahaan ariga ayaa deegaanka Carmo ee Puntland waxa uu sheegay in xoolo fara badan ay ku diyaariyeen sanadkan balse ay heli waayeen dad ka gata qaarkoodna ay ku bixiyeen deymo. waxa uu ka warramaya marka hore meelaha ay ariga ka keeneen waxaana suuqa xoolaha lagu iibiyo ee degmada Carmo uu kula kulmay wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac. arigan waxaan ka keenay deegaanka muxuu ahaa balliga ilaa adigu jecel meesha la yiraahdo waxaan soo kaxeeyay adigu bishii maaragtay idan alxa markay 8 ahayd 9kiina waa soo hoyanay xoolihii dhammaan markaa waa la soo keenay baabuurta timi insha Allah waxa weey ariyihii meelaha dhow joogay baa la soo kaxeeyay maalintay 9 ahayd ariga waxa weeyaan ilaa maalinkay 10 ka ahayd waxa weeyaan halkaas baa iibkiisa macnaha waxa weeyaan si fiican loo qaato ballan ku ahaa laakiin iibkiisidii maaragtay la rabay xoolihii uma iibsamin bacdama marka ugu horeeyay Sacuudigu maaragtay waxa weeyaan xoolaha la geen jiray oo xajkii xirmay tan labaadna waxay ahayd dadkii ma garanaysaa lacagaha maaragtay hayay ama dadkii macnaha waxa weey dadka in ariga ka gadaan macnaha la rabay deegaamo kale baa xoolihii laga soo iibiyay sida daraadeed marka waxa weeyaan dadkii xoolaha keenay adigu boqolkii waxaan oran karaa 50 ama boqolkiiba 60 arigii ma iibsamin ama boqolkiiba 70 marka ilaahdo xoolihii ma iibsamin hadeerna wali xiriyahay ku jiraaneen waxa lagu dayay in la dhoofiyo oo wax loo raray Boosaaso dekeda sida daraadeed waxa weeyaan macnaha xoolihii darbad baa ku kacday hadeerna xoolihii macnaha wax weey wali waxay ku jiraan xiriyahay ku jiraaneen. Cabdinaasir Ugaas Cali oo ah dhaqaaliyahan degan magaalada Shanghai dalka India ayaa faahfaahin iga siiyay sida uu sanadkan u saameeyay COVID-19 dhoofkii xoolaha. sanadkan ma jirin xoolo badan oo la dhoofiyay sabab la xiriira xajkii oo aan dad badan aadin arintaasi runtii aad bay u saameynaysaa dhaqaalaha dalka iyo ganacsatada xoolaha dhoofiya sidan wada ogsoonahay adduunka saameynta weyn uu ku yeeshay xanuunka coronavirus dhammaan caalamka kaba waxaa aad la soo darsay dhaqaale xumo ama dhaqaale burbur runtii waa mid aad u ballaaran oo guud ahaan dunida oo idilba laga dareemay haddii aan u nimaano saameynta uu ku yeeshay dhanka ganacsatada dhoofisa xoolaha nool weliba xilligii lagu jiray baahida aadka loogu qabay lana dhoofin jiray xoolaha oo loogu talagalay xajka oo sanadkan baaqday sababo la xiriira xanuunka coronavirus halkii ay sanadii waayadii hore ka soo xajin jireen dad 2 milyan ilaa 3 milyan oo qof oo ay gaari jireen sanadkan oo kaliya soo xajiyeen 10 kun oo qof taasoo aad hoos u dhac weyn dhanka xajka xujayada ku yimiday sababtaasna waxaa loo aaneynayaa inay tahay coronavirus oo adduunka kala xanibay Soomaaliya waa runtii wadalka ugu badan ee xoolaha u dhoofiya wadanka Sacuudiga taasoo xoolaha Soomaalidu aad ka looga jecel yahay dalka ugu badan ee u dhoofiyaan waa Sacuudiga waxaan ka warqabnaa in sanadkan dalku uu iska xiray dibadii waxay ugu imanayeen aysan soo xajin dad badan sanadihii hore ee soo xajin jireen marka saameyn aad u ku keenaysa ganacsatada Soomaalida oo mar walba aaraba dhoofin jiray xoolahooda oo aanan suuq kala haysan maadaama dadku inta ugu badanba xoolaha marka la dhoofinayo dadku waxay u dhoofin jireen dibadaha siiba wadanka Sacuudi Carabiya waxaa jirta in suuqyada Soomaalida ay u diraan xoolaha inay yihiin kuwo aad u yar marka laga soo tago Sacuudiga iyadoo taasina ay keenayso in haddii dakhliga Sacuudiga ay ka helaan xoololeyda Soomaaliyeed uu xirmo in ay khasaaro galaan. Cabdinaasir Ugaas Cali ayaa dardaaran u jeediyay ganacsatada Soomaaliyeed waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay inay suuqyo kala raadiyaan oo aysan ku xirnaanin suuqyo kooban oo kaliya. waxaase kula talin lahaa inay wadooyin kaleento ama meelo kale oo ila kale la geeyo adduunkan uu maaha kaliya ta Sacuudi Carabiya baahida xoolaha Soomaalida loo qabana waa baahi aad u weyn cid walbana way ka warqabtaa tayada iyo wanaagsanaanta iyo xooluhu Soomaaliyeed ay leeyihiin marka waxaan ku boorin lahaa xoololeyda iyo ganacsatada iyo dawladda Soomaaliyaba
inay indhaha saaraan indheeyaan meelo kale helaan ay xoolahooda u suuq geysan karaan. haddaba waa maxay sababta keenaysa in xoololeyda Soomaaliyeed ay waayaan suuqyo kale oo ay xoolahooda u iibgeeyaan? waxaa arrimahan sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur. suuqyada ugu caansan oo wax loo dhoofiyo suuqyada ugu waaweyn waxaa waaye wadanka Sacuudiga. Sacuudiga wuxuu dhoofsadaa 64% xoolaha Soomaalida uu dhoofsadaa. 18% waxaa dhoofsaday Imaaraadka, 7% waxaa dhoofsatay Cumaan. Qatar iyo Bahrain iyo Kuwait markii la isku daro waxay dhoofsadaan 11% ay dhoofsadaan. sidaa darteed suuqa ugu weyn wuxuu ahaa Sacuudiga oo marka joojiye ama aan dhoofsanin waxay adverse shock saameyn aan fiicnayn ay ku yeelan doontaa xoolaha iyo dhaqaalaha Soomaaliya ay ku yeelan doontaa. suuqyada kale aad ay u adag tahay in la helo suuqyo kale in la helo, gaar ahaan suuqyadan Aasiya iyo Yurub iyo Mareykanka in la helo uma sahlana ganacsatada xoolaha dhoofisa ee Soomaalida uma sahlana. dhowr sababood jirta marka. sababta koowaad waxa waaye wadamada 1995 waxaa la sameeyay heshiis la yiraahdo sanitary and phytosanitary measures ama agreement ama heshiiskaas wuxuu wadan kasta u ogolaanaya inuu ka fakaro caafimaadka xoolihiisa, dadkiisa iyo cunada ay dadka cunaan, food safety waxa la yiraahdo inay ka fakaraan. sidaa darteed markasta wax cuna la xiriira ay dhoofsanayaan waxay marsiiyaan quality assurance procedure. gaar ahaan waa inuu haysto kambaniga shahaadadan ay bixiso hay-adan quality-ga adduunyada ilaalisa ISO loo soo gaabiyo. kambaniyada Soomaaliyeed iyo dadka xoolo dhaqatada Soomaalida oo badanaa informal u badanna uma sahlan inay helaan shahaadooyinkaas inay helaan. sidoo kale governance-ga iyo measures-ka Soomaaliya ka jiro oo aan meelaha qaar aad looga qanacsanayn. maadaama marka aan la heli karin certification-kaas waxaa adag in loo dhoofiyo wadamada kale ama suuqyo kale oo horumarsan in la helo ma sahlana. waxaa kaloo iyadana jirto dhaqaale ahaan wadamada adduunyada waxay ku dadaalaan inay gaaraan food security. food security-na waa wadanka cunno ahaan inuu asaga isku filnaado oo isku tiirsanaado. maadaama marka xoolaha hilibka uu yahay waxa laga helayo, wadan kasta wuxuu ku dadaalaa in uu ugu yaraan baahiyahaas gudaha asaga uu xallin karo si hadhow haddii kala go uu ku yimaado aysan bulshadiisa iyo aysan u saameynin. iyadoo dhibaatooyinkaasi dhan ay jiraan ayaa haddana Khalid Saciid oo ah isku duwaha dhinaca xoolaha ee hay'adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay waxa uu sheegayaa in xoololeyda Soomaaliyeed ay bilihii April ilaa July u suura gashay inay dhoofiyaan 1.3 milyan oo xoolo ah, kuwaasoo qiimahooda lagu sheegay ilaa 95 milyan oo dollarka Mareykanka. halkii ari ayaa meelaha qaar waxaa la kala siistaa qiimo ahaan inta u dhaxaysa 80 ilaa 50 dollarka Mareykanka. sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka, Soomaaliya ayaa xoolaheeda lagu qiyaasaa 53 milyan oo u dhiganta 73% waxyaabaha ay Soomaalidu dhoofiso. aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo barnaamijkaasi bandhiga VOA inoo soo jeedinayay. haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane. madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa Muqdisho kulan kula qaatay wasiiro ka tirsan dowladda federaalka oo deegaan doorashadoodu ay tahay Hirshabeelle. waxay ka wada hadleen arrimaha deegaanka haddii ay noqon lahaayeen horumar ama dib u dhac, maadaama dhowaan la filayo in dalka uu galo doorasho. mas-uuliyiintaasi heer federaal iyo heer maamul goboleed muddadii ay xafiiska joogeen deegaanka wax ma u qabteen? waa xubinteenna dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Muuse Cabdi Daahiye, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee magaalada Beledweyne, islamarkaana ah wakiilka xisbiga Kulan ee gobolka Hiiraan, iyo Sheekh Doon Faarax Waare, siyaasi aad ugu ololeeya arrimaha deegaanka. waxaa hadalka ku hormaray Muuse Cabdi Daahiye.
xaqiiqada markaan ka hadalno nimankan madaxda ee kasoo jeeda stateka ama golaha wasiirada ee doorashadoodu ay tahay stateka hirshabeelle runtii wax ay qabteen haba yaraatee ma jirto hirshabeelle hadday tahay dhankii amniga caafimaadkii goobihii waxbarashadii intaba dhibaata ka taagan waa la socotaa magaaladii muqdisho iyo balcad mar loo kala gudbi karo balcad iyo jowharna waa kala xiran yihiin beledweyne buulabardi sidoo kale waa kala xiran yihiin amni darrada jirta awgeeda waxaa la socotaa in xaaladaha caafimaad darre ka jira hirshabeelle hadda khaasatan markaan dhahna magaalada beledweyne oo kale iyo jowhar inta badan ay fatahaadaha ka geystaan webigu waxaa dhaco daacumaa dhaco waxaa dhaca yani cudurro badana dilaaco magaaladii marka waxaa la rabaa dadku markay ka baxaan oo kale in yani laga buufiyo oo dadki yani kabacdi laga celsho wax haba yaraataa ay ka geysteen haba yaraato ma jiraan meeshaas. waa mahadsan tahay sheekh doon. wax waa la qabtay oo waxyaabaha la qabta horumarka ee hadda ama waxqabadka meesha ka socdaa ka mida sidii la rabo yay noqon oo adduunka gaabi wuu iska jiraa magaalooyinka koonfurta oo dhanna meelo badan ayay maaragtay gacanta ku hayaan nimankan dowladda kasoo horjeeda marka isdhihi maayo waxba lama qaban shirka hadda ee meesha ka socdana aniga kolley waan soo dhaweyna aragtihantayda muhiimad gooniyana waa u leeyahay khaasatan stateka hirshabeelle dad ka soo jeedo isla wada degan oo muglahana meesha ku wada shiraya waxaan isleeyahay marka in wax la qabto waa waxa meesha loo tegey waana soo dhaweyneynaa waxqabad hadda hirshabeelle ee wanaagsan ay taabagalaan inuu ka soo baxaan filaynaa insha allah. waa mahadsan tahay muuse waxaa tiri waxba lama qaban waxyaabaha la filayay in la qabto oo aan la qaban maxaa nooga tilmaami kartaa? xuseen horta waa mahadsan tahay waxyaalaha la qaban waxaa ka mid a istiidyada kale waa la socotaa maamul goboleeda wadanka jiro kale horumarka ka socdo hadday dhismo tahay hadday tahay wadooyinka la dhisayo caafimaadka dhan walba iyo amniga dadka madaxda istiidyada kale aho waxay socdaan ayagoo bilaa staff la-aan xitaa ay socdaan meeshaan waxaa halisa xitaa inuu qofku yani ouna keligiis inuu ilaa iyo staff fara badan soo wadin unu soco karin dhibaatada jirta oo amni darrada taas waa marka aniga waxaan u arkaa shirkaas inay nimankan oo waqtigooda intuu dhammaaday horistaagay yihiin iyo dadka yani wax qabashada ay waxbuu qabanayn marka waxaan dhihi lahay nimankan walaalaheenna annaka waxqabadkiina waan aragnay inay 4 sano markii waa dhammaatay inay ka baneeyaan xafiisyada si aan dad iyagu maadaan waxqabad kale aan ka rajaynayna insha allah. dhanka amnigoo kale markaan ka hadlo hadda hirshabeelle waxaa xuduud nala ah dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ciidamada etoobiya iyo qoladan oo new booliska gudaha soomaaliya soo galeen dad bay ku laayaan hanti bay dhacaan mar walba shaladan ugu dambeysay waxaa dhacday inay dad ku dileen xuduudka waxaba yaraatay ka qabteenna ma lahan waana arrin muddo dheer soo socoto waa maamulka wuxuu ka qabta ma lahan hirshabeellena waxay ka qabata ma lahan dowladda dhexintaba marka waxaan u arkaa aniga barnaamijkaas shirka meesha ka dhacay maadaama waqtigooda dhammaaday inay yani ama muddo kororsi rabaan ay ku raadiyaan marka waxaan dhihi lahay nimankan inay baneeyaan xafiiska si dad yani imaadaan waxqabad wanaagsan. waa mahadsantahay muuse. sheekh doon sidaa maqlaysa muuse wuxuu leeyahay mas-uuliyiinta shiraya waxay rabaan inay soo laabtaan ujeeddo kale oo ay u shirayaan oo waxqabad ah ma jirto. haye soo laabashadu iyo soo noqodkuna hadda xaqna waa uleeyihiin oo qofku deegaanka iyo dalka iyo mas-uuliyadda ka saaran xaqna waa uleeyahay haddii la doorto inuu soo noqdo oo wax u diidaa ma jiraan oo ma dhihi karno haddii dadka codka ay siiyaan ama uu maaragtay xildhibaanadoo kale ay beelahooda ay ka soo helaan ma anigu caqabad taa uma arko laakiin waxaan ka wada hadlaynay horumarka ay ahayd xagga horumarka marka haddaan ugu laabto muuse waxaan u malaynaa si fiican uuna uga warqabin waxyaabo badanaa la qabtay biyobaxadii beledweyne fatahadihii ku dhufta waa la yimid hadda lacag mashaariica la keenay lacagta dowladda dhexe iyo hirshabeelle iyo dhammaan beesha caalamka qaybo badan iska kaashadana yimid inay wax socdaan oo hadda biyo xireenkii socdo oo shaqa socoto beledweyne aan ognahay ina wado oo laamiga laga dhisaa beledweyne bartankeeda dhex martaan ognahay ilaa jante tan kaleeto oo xaduudaha iyo amniga uu ka hadlana horta way jirtaa caqabad hirshabeelle haysato waana maamul curduna oo markii ugu horreysa ah isteedyada kale uu maaragtay muuse uu gobaadinayo horta way ku mahadsan yihiin wadda soomaaliya laakiin waxaan u arkaa waa state kastaa 2 doorasho maraya oo laga yaabo qofku dhashay iyo qof soconaa inayna isku mid ahayn waxay soo mareen inuu dib u fiiriyo ku kastaaba culayskiisa 4 sano wuxuu ku soo qaatay
waxba lama qaban camal sidaan oo kale. Laakiin waxaan la tahay meel wax laga qaban karay la keenay doorashada hadda soo socotana hadda waxa la joogaa meel wax laga qaban karo, wax laga bilaabi karo, wax badanaa bilaaban. Ciidamadu way dhisan yihiin Hirshabelle, ciidamo badan oo aan sidii karo waa police ayaa la soo tababaray. Waxaa la sameeyey jidad, waxaa la sameeyey biyo xireenno, sahamo badanaa yimid. Doorashada waa lagu soo noqno siminaaro badanaa bulshada ka dhex socdo iyo maaragtay horumarro kale. Taa aan isleeyahay dowladda Etoobiya dhankaasne aragtidiisa ma qabo. Laba qabiila isku dilayso meeshaas oo meesha isla degan. Qabaa'iladuna meel walba isku dilaan. Gudaha Etoobiya Addis Ababa agteeda la isku dilaa, Muqdisho agteedana waa la isku dilaa. Marka qabiilo waaye oo laba qabaa'ila isku dhex dilayda Etoobiya isla degan. Laga yaabo inay dhinac ka tahay. Marka taa baddeena kuma jirtaba. Maamulka Hirshabellena midow shaqo ku leeyahay maahano xuduudka maan wax ka socdaan gudaha Etoobiya shala wax ka dhaceen iyo maalmihii dhaweydba. Marka dawladda Etoobiya anaga naftirkeena waxaan baaq dhinaceen uga jeedinaynaa in maaragtay dagaalka dadka beelaha hoos tirira maadaama dawlad leeyihiin iyo state-kuba inay xaliyaan. waa maasantahay Muuse, waa maqlaysaa Sheekh Doorto waa maasan yahay. Laba qodob aan rabaa haddana ka hadlo. Wuxuu yiri doorashada way soo geli karaan, qofku asiga waa xor doorashada uu soo sharci karaa, laakiin muhiimaddu waxa waaye waqtiga loogu talagalay inuu dhammaysto xafiiska baneeyo. Hadduu rabo soo sharaxo midda kale yani waxaa hortaala yani wax ma qabteen, haddii soo noqdaan wax ma qabteen horta waxay qabteen haba yaraataan ma jiraan. Tan kale waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijka mashaariicdu socoto oo walaalkii noo sheegay ilaa 4 sano waxa la mashaariica socoto waxbaa la qabanayaa. waxaa ogtihiin biyo-baxadii labadii biyo-baxoo dhacday oo gobolkan ku dhacday Hiiraan beledweyne qaasatan dhibaataday geysteen waa la socotiin. Hadda waxaa jirto biyo-baxaada jirto oo magaalada kusoo baxday oo fatahaade wax haba yaraatee wax ka qabasho la geystay ma jiraan. wadooyinka wadadan la leeyahay mar walba waa la dhisayo. Aniga waxaan arkaa inay caqabad hor la dadku keeneen oo laamiga horinta la duugay oo dhiiqa yani lagu shubay, roob ku daay, caradii godad noqdeen, biyo fariisana noqdeen oo yani wax mashaariic kama socdaan gobolka. Marka xaqiiqada ka hadalno oo biyo xireen lacaga waa la keenaa, laakiin meelay maraa ma naqaan. Lacaga waa la keenaa, waxbaa lagu qabtaa lele eelaboorkeena waad aragteen mar walba yani dhibaatada ka taagan waa qoyan yahay, dabdamis ma lahan. waa la socotaan diyaarad oo yani oo gargaar bini'aadanimo waday magaalada beledweyne ku gubatay. wax haba yaraatee oo dabdamisa ma lahan. haddii lacag la dad saarnaa lahayn waa meeshaas dhibaata ka dhici lahayd. marka lacagtii laga qaado oo garoonka waxaan ognahay inay lacag badan ka soo xarooto jeeb dadeeday gashaa. wax haba yaraatee lagu qabtaa ma jiraan. marka lacagaan kaloo gargaarka oo la keeno iyo mashaariicdaani sidoo kale jeeb dadeeday gashaa. wax lagu qabtaa ba yaraatee ma jiraan. wadaa la dhisayaa wax ka jira ma lahan. biyo xireenaa jira ma jiraan. fatahaadiya hadoo laguda gobolka ku sii zaa'idahaan. marka waxaan leenahay dadku waa ka hor wareegaan, waxqabadkoodii waan soo aragnay, dad wax qabanaa sugayna insha Allah. waa maasantahay Muuse. Sheekh Doon waa maqlaysaa. Muuse wuxuu leeyahay waxba lama qaban, wixii dadka wax loogu qaban lahaa shakhsiyada maamushay. Wallaahi Muuse kolley waxa waaye hadalkiisu waa mucaarad le mooyaane kolley wax bartood lama qaban hataa inuu yiraahdo ma doodiisa ma la qaba. Aniga horena waa kugu sheegay waxa in la qabto waxa kugu daliila biyo-baxadu horta way iska daba dhaweed oo hadda lacagan haynaa oo maaragtay gobolka beledweyne taalla oo guddiga fatahaadaha hayaan in wax la qabto oo maaragtay sahan la sameeyo oo adereeskii markii ananaysi la sameeyo kabacdi ayaa la rabaa marka mashaariicda inay fusho. horta xagga biyo-baxada waa wax ilaahay xaggii ka yimid oo ilaahay maaragtay nimcada uu wato kamida. musiibooyinka hadda bini'aadanka lagu masiibeeyana kamida oo dabiiciya. lama dhihi karo dowladda looma sababay karo ama stateka Hirshabelle laguma eeday karo. waxbay ka qabteen, way hadleen, sahamay sameeyeen ilaa heer madaxweynihii uu yimaado federaalka meeshaanay keeneen. adduunka caalamka oo dhanaa arkay. laakiin wixii hadda 2 bilood iyo 3 bilood wax laguma qaban karo. hadda waan ognahay hadda xilli roobaan ku jirnaa, webigu wuu buuxaa, kiliyaalkii o dhan way soo baxeen, dadaalana way socdaan. marka waxba lama qaban, taasaan ka leeyahay oo waxbartooda socda. aeroboortka asiga sidoo kale waa wax u baahan in injineer la keeno oo waqti wuxuu qaataan. maahan meesha guri la dhisaa ama dariiq maaragta la banaynayo la xaaraa maahan. waxay u baahan tahay in la keeno waxa ka maqan adduunka ama dalkan oo dhan Soomaaliya waxa ka maqan laamigan aalin wadanka. waxay u baahan yihiin wuxuu qarashkii wixii la isku aadiyo process ku jiraan waxyaabahaas oo dhan sida anaga aan ognahay ama mas'uuliyiinta waaweyn oo sida odayaasha dhaqameedyada kale ay ballan qaadeen noo cadeeyeen ay sharar ku qabteen. ugaaskoo kale oo hadda ka hadlay wadadan oo kale hadda waa aragnaaho waxbaa laga qabtay, waxqabadkeedana waa u jeednaa, wuu socdaa. marka laamigii haddii la carab buuxinayo oo la garaacayo Muuse inuu yiraahdo dhiiqa laga dhigay
doodiisa ma u noqonayso. waa mahadsanta muuse. ugu dambeyn shirarka madaxweyne waare uu ka wado magaalada muqdisho oo uu la shirayo siyaasiyiinta reer hirshabelle, ugu dambeyn maxaa laga fili karaa bay kula tahay, inkastoo aad mucaaradayso oo aad leedahay waxba kama soo baxaya? aniga waxaan u arkaa inayna waxba kama jiraan ay ka soo baxaan, sababtoo dadku waa shiri karaan. aniga waxaan isleeyahay nimankaas isku tegey oo madaxweynaha iyo golaha wasiiradu ay yihiin kusameeyaal xukuumaddii ogta in kala raacdiyey. marka waxaan u aragnaa meeshaas inay dadka yani is hor istaagaan ama yani si kusoo noqonayaan ama wax malin kugu daran oo inay ka dhacdo. marka waxaan leeyahay xilligii wasiirada rasmiga ahaayeen ay joogeen oo 3 sano iyo 6 bilooda haba yaraatee waxay qabteen ma jiraan. marka waxaan leeyahay madaxweyne waare waa mahadsan tahay, annagu wax qabad baa u baahannahay deegaanka iyo bulshada in wax loo qabto iyo golaha wasiirada intaba. waxaan leenahay marka waqtigiina waa dhammaaday, dad cusubaa imaanayo oo wax qabadkooda aan sugayno inay wax qabtaan oo la xisaabtano. marka waxaan leenahay inay naga hor wareegtaan. waa mahadsantihiin, annaga waxaan baahnaa in wax naloo qabto, bulshada wax loo qabto. waa mahadsan tahay. haye Sheekh Doon, wixii jira in la sheego waa sax. xaqiiqatan waxaan isleeyahay madaxweynaha iyo shirarka hadda muqdisho ka socdo waqtigii ugu habboonay oo loogu talagalay in lagu soo aadiyey kuna dhacayaan, waana sababeynaya. sababtu waxay tahay haddii wax la soo shaqaynayey wixiina ayna dhammaan rabaan la ogoodo, waa in laysku sheego meesha wax marayaan, dadka la tuso meesha gaabku ka jiro iyo meesha wixii lasoo qabtay. shirarkana hadda khudbadahu ka jeediyey madaxweyne waare, waxaan isleeyahay khudbihii ugu wanaagsanaay la jeediyo ama ugu habboonaa shirka in laga jeediyay ahayd. hadduu tusay dadka statekan iskale qabiilooyinka kala duwan ah ee meesha ku shirayo, doorashadooda ama deegaankan maamul goboleedkan dad ka soo jeeda ah oo madaxdii heer federaal iyo heer stateba ay wada joogto. wakti wanaagsan ayuu khudbooyinkaas u jeediyey. shirarkaasna waxbaa ka soo baxaya. wixii hore u qabyahayna waa lagu dhammaystiri karaan isleeyahay. inta dhiman doorasho waktigeeda ku dhacday iyo qaabka hadda wadahadallada u socdaanne waa laga maarmaan in wax laysku afkarto oo meesha wax ka soo baxaan. marka shirkaas aniga waa taageersanahay, waana gobaadinayaa in wax ka soo baxaan. ilahay xaggi waa ka rajaynaynaa. waxaan leeyahay marka hore u socda. reer hirshabellena hadda waxay marayaan dad isku dhegdhegan oo buuq badan oo dagaal badan ma ahan. waa stateka keliya ee dowladda dhexe iyo asaga iska qabsi badan oo ayna ka jirin, dhibaatooyin badanna ayna ka dhicin. qabaa'ilka sida degana dadka ugu badan oo qabaa'ila ay yihiin, meelo waxaa degan qoysas keliya inay degan yihiin laga yaabaa. marka anigu waa soo dhawaynayaa, waxaana ka rajaynayaa in wax wanaagsan ay ka soo baxaan. intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. waxaa dooda igala qayb galay muuse cabdi daahiye iyo Sheekh Doon Faarax Waare. inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo. haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Garabey Daandurey. kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu yahay Dr. Shaafici Aadan Diriro oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo qalliinka kana howlgala magaalada Muqdisho. dhakhtarku wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegaystayaashan la soo xiriiray barnaamijka, iyadoo barnaamijkana uu noo soo diyaariyey werigeena Xuseen Xasan Dhaqane. awalan waa salaama toorka, magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdicasiis Cali Axmed. waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxaanta laga helo keliyaha ama ku dhaca keliyaha maxaa keena, ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka, sideese lagu ogaa karaa? isbitaal Shaafi ahaanse maadaama dhakhtarku uu joogo, maxay ku qalaan ay qaliimada ay ku sameeyaan ay yihiin, iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas? Cabdicasiis waa mahadsan tahay, su-aal muhiima waaye. dhagxaanta oo keliyaha ku dhaca ama ku samaysma, waxaa moodaa waddankeena marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale. sababtana keenaysana waxaa weeye dadkeena Soomaalida ah oo waddanku ku nool iyo biyo cabkoodoo yar. marka qofkii hadduu biyo yar cabo, kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabihii qashanka keliyu soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo.
marka wixii meesha ku ururayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan. marka dhagxaantaas oo keliyaha gudahooda ku samaysmi kara hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kelida iyo u dhexaysa kaadahaysta soo galaan oo qofkii markaas xanuun aada u daran bay u keenaan. marmarka qaarkood waxay xiraan tuubadaas bay xiraan kelidii waxay noqonaysaa sidii buufin camal oo kale. marmarka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan waxay ku samaysmaan kaadahaysta ku samaysmaan. taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo ordayo marmarka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan. see lagu ogaadaa? sida lagu ogaado waxa weeye ka sokow calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kelida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya hoos ilaa gumaarka xanuun halkaas soo aadahaya marmarna matag ku keenahaya mafahanta oo aada u dhib badan buu sababaa. sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaabaha dialysis methodka waa computerka ama ultrasonka qofka la saaro iyo marmarka iyo iskaankaba. daawadoodu waa kala duwan tahay. hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fududeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan. hadday weyn yihiin laftoodu daawadooda kala duwanta qalitaamo noocyo kala duwan baan anaga isfaal ahaan ku samaynaa. waxaa jira laser markaan yidhaahdo SLD machine oo dhagaxii hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaacahaya baa jira oo dhagaxii yaryaraynahaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacahaya. hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale oo mashiin kale ayadoon qofka la jeexaynin. waxaan filayaa isbitaalka ugu horeeya oo waddanka ku sameeyay inaan nahay. BSNL baa la yidhaahdaa. qalab baa gadaal laga gelinhayaa. dhagaxii baa lasoo jejebinhayaa. laser lagu soo jejebinhayaa. marmarka qaarkood haddii oo ayadana waxaan samaynaa ayadoo ibta la marahayo kaadihaysa lasii marahayo tubooyinka kaadi mareenka oo u dhexeeya kelida iyo kaadihaysta lasii marahayo baa kelida gudaheeda waxaa inta dhagaxi loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa. kuwa oo tuubooyinka xireesaan hore u sheegay ayagana ibtaa la maraa laser soo burburinayaa jira. kaadihaysta lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nooc kasta uu yahay annaga jeexitaan kuma samayno. laser baan ku qalnaa ama ibta iyadoo la marhaya ama qalab kor laga gelinhayo. taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka ee waddankeenu uu marhaya. waxaan odhan karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urology-ga waa kelidii qofka lagu tallaalayo bas transplantation bas. waxa kaloo dhan waa wax oo waddan gudihiisa aan ku samayno. insha allah ilaah idankiis ayadana waxaan rajeynaynaa inaan samayn doono. miska cabdiqaadir maxamuud waa magacayga. waxaan joogaa magaalada muqdisho. waxaan jaanis u helay inaan markale su-aal weydiiyo dhakhtarka. su-aashaa weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka. yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale. marka buradaas maxay tahay? yani sideena ku ogaan karaa? dhalmo la-aan ma keentaa? caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa ka mid ah. dumarka saa u sheegtay burooyin oo iyaga khaas u abaa jira. burooyinkaasna maxay kasoo bixi karaan? waxay kasoo bixi karaan qaybaha ay uga duwan yihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka. marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yidhaahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa. maxaa ku samaysmahaya? waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira
marmarka qaarkood ilka ku dhex jira ma fahamtay marka waa nooc burooyinka kamid ah maahan inay ka badan yihiin markii hore laakiin systemka caafimaadka oo soo hagaagsanaanaya iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasonka computerka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in wakti hore la ogaado markaas kabacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uu uga buskooda. waxaa kaloo jira burooyin ayagana minka kasoo baxa. buro kasta oo minka ku taala ama baalkan yaraada isheeg waxansidaha ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertilityda qofka ama wax dhalmada la xiriira ma fahamta qof xanuunsan weeye. marka burooyinka minka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan alxamdulilah dad badan oo unta u sameynay sababta marka hore buro marka ku jirta cayaas waxay ku sameynaysaa minka marka dhicis iyo waxyaabahaas abortation bay u keenaysaa. intaasi dhegeystayaal waxaa ku dhan qaybtan barnaamijkana weydiiya dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Shaafici Aadan Dirir oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo qalliinka kana howlgala magaalada Muqdisho. intaan marka ku mid doono sidaa ay nabadgelyo. aan intaasi ku dhaafno barnaamijka dhakhtarka weydii oo uu inoo soo diyaariyey soona jeedinayay Ibraahim Xasan Daandurey. intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil idaacaddeenii galabnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo. haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada faalla ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka. musuq maasuqa iyo cadaadisku waxay astaan u yihiin maamulka madaxweynaha dalka Nicaragua ee Daniel Ortega iyo dadka ku xeeran ayaa hortaagan in dalkaasi dib ugu soo laabto hanaanka dimuqraadiyadda iyagoo oo horseed u noqday xaaladda faraha ka baxday ee fiditaanka cudurka COVID-19. danjiraha Maraykanka Carlos Trujillo ayaa dhowaan u sheegay ururka dalalka qaaradda Ameerika in dadka reer Nicaragua ay soo food saartay halis cusub oo uga imanaysa cudurka COVID-19 iyadoo aanay dowladdu wax tallaabo ah qaadin, taasoo sababtay in qarka loo saarnaado masiibo iyo dhimasho aan loo baahnayn. danjiraha Maraykanka ayaa sheegay in dowladda Nicaragua aanay dan ka lahayn shacabka balse waxa kaliya ay danaynaysaa in talada ay sii hayso ilaa iyo weligood. danjiraha Maraykanka ayaa sidoo kale tilmaamay in xukuumadda Ortega ay weli cadaadis iyo caburin ku hayso saxafiyiinta madaxa bannaan iyo bulshada rayidka ah ee raba in ay xaqiiqada sheegaan. sidoo kale waxay xukuumadda Nicaragua eriday shaqaalaha caafimaadka ee u ololeynaya in la qaado tallaabo lagaga hortegayo cudurka COVID-19. dowladda Maraykanka ayaa iyadoo ka jawaabaysa musuq maasuqa maamulka Ortega waxay ku dhawaaqday 17 Juulaay inay cunaqabateen dheeraad ah ku soo rogtay dhinacyada kale ah Juan Carlos Ortega Murillo, José Jorge Mujica, Difuso Comunicación iyo weliba Mundo Digital. tallaabooyinkan ayaa ah kuwa daba socda qaraarka tirsigiisu yahay 13,851 ee ku saabsanaa shakhsiyaadkaasi iyo shirkadahaasi islamarkaana ka mamnuucay dadka Maraykanka ah in ay la tacaamulaan. shakhsiyaadka iyo shirkadaha cunaqabateynta la saaray ayaa lunsaday hantida dadweynaha iyaga oo dana gaar ah iyo ujeedooyin siyaasadeed u adeegsaday islamarkaana laaluush iyo musuq maasuq ku bixiyey qandaraasyada dowladda. Ortega Murillo oo ah wiilka uu dhalay madaxweyne Ortega iyo hooyadii oo iyadu ah madaxweyne ku-xigeenka dalka ahna marwada koobaad ee Nicaragua, Rosario Murillo ayaa maamula warbaahinta Difuso Comunicación, taasoo ah shirkad loo adeegsado caburinta codadka madaxa bannaan. sidoo kale Mujica iyo Mundo Digital ayaa muddo dheer iyagu ka faa'iidaysanayay musuq maasuqa ay shuraakada ku leeyihiin xukuumadda dalka Nicaragua iyagoo si gaar ah uga lacagaystay islamarkaana sahlay in madaxda rajiimka ay ka ilaaliyaan cunaqabateynta iyo ciqaabta. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in dowladda Maraykanku ay sii wadi doonto tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee lagu taageerayo shacabka Nicaragua laguna cadaadinayo maamulka Ortega si ay u joojiyaan muquulinta shacabka dalkaasi islamarkaana loo damaanad qaado in shacabkaasi ay helaan xorriyaddooda asaasiga ah
iyo sidii loo heli lahaa shuruudaha sahlaya in doorasho cadaalad ah oo hufnaan ah la helo si ay nicaragua ugu soo laabato dhabbada hanaanka dimuqraadiyadda. taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Maraykanka.